madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa ugu hambalyeeyay Soomaalida Mareykanka guulaha ay ka gaareen doorashooyinka hordhaca ah waxaana uu hambalyo u diray Ilhaan Cumar Fataax iyo Jamaal Cusmaan. Ilhaan Cumar ayaa mar kale ku guuleysatay inay xisbigeeda dimuqraadiga ku matasho degmada shanaad ee Koongareeska Mareykanka marka la gaaro doorashooyinka November. Cumar Fataax ayaa isna ku guuleystay golaha sanadka ee gobolka Minnesota ee Soomaalidu aysan horay ugu guuleysan, halka Jamaal Cusmaan uu isna ku guuleystay degmada lixaad ee magaalada Minneapolis. Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa bogaadiyay dadaalka ay sameeyeen xubnahan, wuxuuna u rajeeyay guul waarta inay ka gaaraan doorashooyinka dambe ay ku gaarayaan himiladooda. Madaxweynaha ayaa ku bogaadiyay in ay dadaalka si laba jibaaraan si ay uga gungaadhaan yoolkooda, taasi oo guul u ah dhammaan ummadda Soomaaliyeed. Maxamed Cali Cabdulqaadir, Muqbaahiyaha Galmudug.